habeenkii xalay ayaa waxa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan dadweyne oo xus taariikheed iyo ducaba loogu sameeyay xaajigii nabadda ku suntana Allah u naxariistay Xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Xaaji Cabdi Waraabe. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen qorayaal, siyaasiyiin magac leh, hal abuuro, odayaal iyo dadweyne tiro badan ayaa lagaga warramay samatalisnimadii xaajiga, waxa ay dhalinyaradu ka kororsan karto iyo tusaalihii wanaagsanaa ee uu ahaa. anigu runtii ma qabo geyga Soomaaliyeed ama caalamka dhammaantii qof muddada intaa leeg nabad ka shaqeynayo nabad u taagnaa ku astaan u ah nin codkara buu ahaa, ku dhiiran hadalka, ku dhiiran go'aanka, garnaqa ku dhiiran buu ahaa. xaajigu markuu hadlay waxyaabaha aynu bayrta ka leenahay ee aynu aad uga baqanno waxa ka mid ah intaan imika halkan la soo taago inaan idhaahdo reer qaroon waa tuug weeye ama reer rebel waa waxaas waxa laga yaabaa markaaba in lagu toogtaa laga yaabaa. xaajigu ku dhacaatu lahaayo shirarka inagoo sidaa u fadhino isaga fadhina ayuu reerahan aynu nahay mid walba dhaliishiisa sheegi jiray. xaajigu ma ahayn dadkii u baahnaa inay dadka xantaan, way dadka badana dadka xantaa waa dadkan hadalka la gabada, isaguna hadalka lamu gaban jiray dadka uu ku cadeyn jiray. markii uu geeriyooday waxay harabuurka Soomaalidu ka tiriyeen ilaa 80 maanso oo baroordiid ah, maqaallo ilaa 10 ah iyo tacsiidii ay soo direen dhammaan madaxda Soomaalida ee kala gedisan ee ku nool Geeska Afrika. iyaduna waxay noqon kartaa mid sidiisa buugaar ah insha Allah noqda oo la qoro. reeraha aad isu dili jiray reerkayga ka mid ah ee geela la kala qaadi jiray la isdili jiray. weli nin reerkayaga ah oo Cabdi Waraabe ku xamanaya colaad buu oogay ama colaad buu abuuray lama hayo, iyadoo wixii la isku sameyn jiray Ilaahay og yahay. laakiin dhalinyaradaas inay ogaato waxa kala duway Xuseen Xasan oo in adeerkiisu Cabdi Ciiso raggii halka deegaanka ka ahaaya, waxa kala duway isagii Abaadullaahiyagii qolka madoobe, waxa kala duway isagii Afuran la garaad oo nin reer Isaaq ahaa oo aagaas oo dhan caruurta lagu xuquuqin jiray. midna maanta lama xusuusto, mid loo faataxaynay ma naarag deelo maraba caruurtu ma loo sheegay ma ninkii caynka ahaa hebel ahaa reer hebel waxa ku soo sameeyay. laakiin si Cabdi Waraabe waa ka Ilaahay baa ka badbaadiyay raggaas uu la ayni ahaa uu la kacaan ahaa uu mandaqad kula koray samada ka muuyiman nin Cabdi Ciise ah oo geel qaada ayuu ahaa. Ilaahay baa waafajiyay. haddii Somaliland inta halkaa fadhida intuu noolaa hadday maalin quraynta isu timaado halkaa isagoo fadhiya inta ammaantaan ma buu dhinteenba intuu jiray ay gudbi jireen. قرآن لهم بالمقبل يبان كوري ولي بني دنيهين نقود كارس وحولي أو وقروذين بيتي قادة ما نخل قلت كاودول كانت أنا مالين توقعوه إفكا سجل شدي تمريني وكل قلنتي حاج عبدي مركان هاكل شوقي وانو كالدوانين لبعض لنا أي سياسة رهيب وانو كالدوانين annagoo ilmaadeera abtirsiinta ilmaadeer baan ku nahay xaajiga kasbiga daweyna haddana ilmaadeer baan aniga Cabdi Casiis iyo xaajiga ilmaadeer baan ahayn halkan ku kala duwaneen oo isagu had iyo goor taa aynu ku naqaaneen nabad ayuu waday annabiriyay baa ka kacay baan lahaan Maxamed Siyaad Barroon lay weerarayna kiciya dadka kiciyay soo wadajinay markaan shirka kulanay wuxuu yiri waariyeena guuray markaynu Hargeysa joognay adigu Ilaahay baad wax weydiisatay anna Ilaahay baan wax weydiistay labadeena Ilaahay taadi waa aqbalay. gabagabadii kulankan ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax, isagoo dhalinyarada ugu baaqay inay iska dhaafaan dhaqamada aan habboonayn sida qabyaaladda. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo taariikhdiisa iyo qoraalada laga qoray yarkii hore ka sheekeeyayba lama dhamaystiri karayo. waxaanse dhalinyarada kula talinaya waa taa maanta loo baroordiiqa la xusayo wuu suntamay intuu noolaa taariikhdiisii if iyo aakhiraba wanaag
iyuu maanta mutaystay waa dhallinyaroy mustaqbalka waddanka idinka weeye dadweynaha ayaa dhankooda telefishinkan caalamiga ah ee saab u sheegay waxa ay ka kororsadeen kulankaas xaaji cabdiwaraabe wuxuu qof aad iyo aad muhiim ugu ah qof kastoo Soomaaliya ma aha kaliya Somaliland laakiin Soomaali oo dhan nin odayo maxay tahay oday nabadeeda buu ahaa casharo badan baa laga faa'iiday oo ugu horeysa nabadu xaaji cabdiwaraabe sidoo boobayuusta caleeyay waxay geeridiisu ahayd geeri midaysay ummadda Somaliland oo dhan oo waqtigan xoogaa kala qaybsanaani ay soo kala dhex gashay waxa hogaamiyay ummadda Soomaaliyeed geeska Afrikaba ka soo maray taariikhda minhaan kaga jiro waxa waa qofku dayasho mudan waxa uu ku suntay taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxa ku suntay taariikhda geeska Afrika waxaan uga kororsanay hogaamintiisii dulqaadkiisii dabeecadiisii deganaantiisii runtii waa role model ku dayasho mudan Xaaji Cabdikariin ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay samataliyihii ugu weynaa ee reer Somaliland kaas oo soo noqday ruuxii ugu da'da weynaa ee abid ka soo shaqeeya aqalka baarlamaanka Somaliland Axmed Maxamuud Yuusuf telefishinka Saab Hargeysa